السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالي مeel walba daafaha caalamka ka joogtaan waxaa idin leeyahay galab wanaagsan. Videogan wax yar waxaan rabaa inaan ka hadlo ummadda Soomaaliyeed ee ku kala sugan daafaha caalamka. Mararka qaar waxay ka hadlaan dhagaxyada la dhigay magaalada Muqdisho oo meelaha lagu xindaabay. maanta kan dhinacii ka muuqda magaalada Muqdisho maahan, waa dalka Mareykanka. sababta loo yeelayo maxay tahay? ma ahan dadka banaan baxayo in laga xiray, just kaliya waxaa laga xiray dadka lutriska ah iyo dadka dhibaatada wada oo ku dhex gambanaya dadka banaan baxaya. magaalada Muqdisho waa lagu banaan baxaa, laakiin dad baa ku gambada ee dudumiya wixii ay dowladdu canshuurta dadka ka qaaday ku dhisay. soo dalkii Mareykanka ay waxaas ka dhacayaan maanta. dhagaxa Muqdisho la dhigay, soo ogow dadka caqliga xumada u saaxiibka ah ee qabiilku madax maray, ee in adeerow madax maray, ee jaranjarada lagu koro berin aana wax loo qaban. maanta camal you have to know in ay mar walba dowladdu saxan tahay. dowlad walba oo timaada barnaamij walba oo ay qabanayso ay isleedahay amnigu wax u taraya way ku saxan tahay. kan jawaab ha kuu noqdo. waa ogahay dad badan inay luuqyada ka soo hadlayaan, laakiin waxaas aniga uma joojiyo. waan ka hadlaya wixii aan ka hadli karo oo xaqiiq ku salaysan. soo waxaa idin leeyahay caqliga ha shaqeeyo Soomaali Maxamed.